anigu intaan ka aqaano dee adduunyada iyo dhulka aan joogay 59 wadan baan jaamacadooga ka hadlay ciidamo amba bilaysan noqdaan ama military ha noqdaan meel walba laba amuurood bay u taagan yihiin mid waxa ugu horeyso waxa weeye daafac wadante xadka wadanka inay daafacaan iyo nabadgelyada wadanka gudihiisa inay ilaaliyaan taasi waa ta halkan idin keentay oo de mas'uuliyadda aad garanaysaan ee halkan idin keentay dadka reer Somaliland inta wadanka joogto oo de gudoomiyuhu aad uga warhayo iyo inta yada kumanaanka ah ee dibadda joogta boqolaalka kuna dibadda joogtana aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqayna nabadgelyo aan daafac lahayna waa la iska soo jeedi kolka peace through strength weeyi waxaynu isku ognahay idinkuna aad noo sheegteen marka allah idinla jiro aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idinku farxay markaan idin arkay taasi waa intaas walaalaheen reer Puntland in badan baan ka aqaanaa anu jaamacada wada galnay Cabdiwali Dr. Cabdiwali waan aqaanaa waa xogaabu iga dambeeyay jaamacadaha aad baan isku naqaanaa waa dadkeenni waa dad Soomaaliyeed dhaqan baynu wadaagnaa af baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa laakiin de laba wadan oo kala qarana ayaynu nahay sida wadamada adduunyada carabta oo kaleba ay yihiin waa dad caraba diinta islaamka wada haysta daris qaarkood ay yihiin laakiin de way wada nool yihiin oo waxa waa laga heshiiyey marka reer Puntland waxaan ku leeyahay tartankay naga dhaxeeya ku dagaalayaan u noqon tartankay naga dhaxeeya ha noqdo ku dhaqaale dhis jaamacada iyo iskuul dhis maxaan ku lahay hawada iyo dhulka sidii loo hagaajin lahaa